kulan wacan daawadayaal ku soo dhawaada janaalkeena wararka 24 akhbaareedka weyn ee daawan doontaan waxaa kamid ah Sacuudiga iyo Imaaraadka oo khilaaf xooggan oo soo kala dhaxgalay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya oo dawladdu ku eedeeyay inay ciqaab wadareed marinayso shacabka Jubbaland dawladda federaalka ee Soomaaliya oo ka hadashay go'aanka maxkamadda ICJ ra'iisul wasaare Kheyre oo dalbaday hal arrin oo ku saabsan doorashada Galmudug iyo madaxweyne Mugambe oo geeriyooday qodobadaas iyo kuwa kale ayaa daawan doontaan soo dhawaada saaxiibayaal marka hore daawadaha mugaan inaad subscribe dhahto janaalkeena oo furto gambareelka isla markaana aad asxaabta la sii wadaagto wararkii ugu dambeeyay ee ku saabsan arrimaha Soomaaliya aynu ku bilownay khilaaf xoog leh ayaa soo kala dhaxgalay dawladaha Imaaraadka Carabta iyo Sacuudiga Sacuudi Carabiya iyo Imaaraadka Carabta oo muddo ahaa saaxiibo iyo xulufo aan kala harin ayaa hadda u muuqda inay sii kala tagayaan boqorka Sacuudiga Salmaan bin Abdul Aziz ayaa dhawaan qaaday tallaabo aan caadi ahayn taas oo uu ku sheegay inay aad uga caraysay Imaaraadka Carabta sida laga soo xigtay ila warajo ku dhow Salmaan ayaa hadalkan ka sheegay kulan uu dhawaan la yeeshay madaxweynaha dawladda Yemen ee Sacuudiga uu taageero Cabdurabbi Mansuur Hadi sida ay warisay wakaaladda wararka ee Reuters xudunta xiisadda labada wadan ayaa ah dagaalka Yemen halkaas oo Imaaraadku uu taageero koox gooni goosad ah oo ka soo horjeeda dawladda dalkaasi ee Sacuudiga taageero dhinaca kale gudoomiyaha guddiga xiriirka arrimaha Mareykanka iyo Sacuudiga Salmaan al-Nasri ayaa weerar ku qaaday Imaaraadka isaga oo sheegay inay dhibaatooyin u geysanayaan dalkiisa Sacuudiga sida uu hadalka u dhigay isla markaana ay doonayaan inay awoodooda ku ballaariyaan gobolka waxa uu ficilada Imaaraadka ee Yemen ku qeexay khiyaano qaran sida uu hadalka u dhigay hadallada al-Nasri ayaa imaanaya iyadoo Sacuudiga ay dhawaan ciidamo u direen magaalada Shabwa halkaas oo iska horimaadyo ku dhex maraan ciidamada dawladda ee Sacuudiga taageero ee Yemen iyo maleeshiyaadka koonfureed ee gooni goosadka ah ee uu taageero Imaaraadka Carabta waa hagaag daawadayaal waxaad la socotaan janaalkeena wararka 24 ha mugaan daawada inaad subscribe dhahto janaalkeena oo aad furto gambareelka isla markaana aad asxaabta la sii wadaagto wararkii ugu dambeeyay ee ku saabsan arrimaha Soomaaliya markaana haddii aan eegno xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa dawladdu ku eedeeyay inay ciqaab wadareed marinayso shacabka Jubbaland xildhibaan Cabdifataax Ismaaciil Daahir oo ah gudoomiyaha guddiga duulista hawada gaadiidka wadooyinka dekedaha iyo tamarta ee golaha shacabka baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ahna gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda iyo tiknoolajiyadda ee xisbiga UPD ayaa sheegay in dawladda federaalka ee Soomaaliya ay ciqaab wadareed marinayso shacabka Jubbaland sida uu hadalka u dhigay xildhibaan Cabdifataax ayaa sheegay in xayiraadda dhanka hawada ee dawladda federaalka ay saartay duulimaadka dawlad goboleedka Jubbaland ay tahay arrin ay ka dhalan karto hoos u dhac dhaqaale iyo arrimo bani'aadanimo oo soo wajaha shacabka ku dhaqan deegaanada maamulka Jubbaland xildhibaan Cabdifataax oo ka hadlayay arrinta xayiraadda ay dawladdu saartay magaalada Kismaayo ayaa ku sheegay go'aankan lagu xayiray duulimaadyada Kismaayo ma ahan mid waxyeelaya maamulka Jubbaland balse waxa uu waxyeelada ugu weyn u geysanayaa shacabka ku dhaqan deegaanada maamulka Jubbaland waxaana muuqata in dawladdu ay ciqaab wadareed marinayso shacabka ku dhaqan deegaanada maamulkaasi Jubbaland ayuu hadalkiisa ku soo koobay xildhibaan Cabdifataax oo ka tirsan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya waxa uu intaasi ku daray in go'aanka dawladda ee ku aadan in xayiraad la saaro duulimaadyada magaalada Kismaayo uu su'aal saarayo la soo wareegitaanka maamulka hawada Soomaaliya oo sharciga sahli lahaa uu haatan hor yaallo golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya waxa uu dawladda ugu baaqay inay ka noqoto go'aankaas isla markaana xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ay soo fargeliso arrinta xayiraadda lagu saaray garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa horay u amartay in diyaaradaha ka degay ee kuwa ka duulaya garoonka magaalada Kismaayo oo ay soo maraan garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho si loo hubiyo arrintaas ayaana dhalisay in garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ay dawladdu ka qabato wasiirka amniga ee maamulka Jubbaland kaasi oo haatan ku xiran magaalada Muqdisho wixii intaasi ka dambeeyay ayaa waxaas soo tarayay baaqyada kala duwan ay soo jeedinayaan madaxda mucaaradka ah shalay ay ahayd markii gudoomiye ku-xigeenka aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya oo dawladda ka codsaday in xayiraadda ka qaado garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madoobe ayaa isaguna laba jeer waxa uu qadka telefoonka hore ugu hadlay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya isaga oo kala hadlay in dawladdu ay xayiraadda ka qaado garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo hase yeeshee weli ma cadda mana muuqato tillaabooyin ay dawladdu qaaday oo ku saabsan in xayiraadda laga qaado garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo waa hagaag daawadayaal weli waxaad la socotaan janaalkeena wararka 24 ha mugaan daawada inaad subscribe dhahto janaalkeena si aad u hesho xogihii ugu dambeeyay oo ku saabsan arrimaha Soomaaliya isla markaana aad la sii wadaagto asxaabtaada markaana haddii aan eegno dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa war ka soo saartay go'aankii maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ ambassador Cali Siciid Fiqi oo ah
danjiraha Soomaaliya ee ururka midowga Yurub ayaa ka hadlay go'aankii ka soo baxay maxkamadda cadaaladda adduunka ee loo soo gaabiyo ICJ isla markaana dib loogu dhigay dhageysiga kiiska badda ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya. safiirka ayaa sheegay in ICJ go'aankaasi ay qaadatay kadib markii ay tixgelisay codsigii ka yimid dhanka Kenya, sidoo kalena jawaabtii ay ka bixisay dowladda federaalka ee Soomaaliya ay dhageysatay. Fiqi ayaa sheegay inaysan wax dhibaato u arkin go'aankaas isla markaana uu ahayn mid dhibaato ku ah Soomaaliya sida uu hadalka u dhigay. sidoo kale waxa uu tilmaamay inay soo dhaweynayaan tilaabadan isla markaana ay ku faraxsan yihiin. maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ ayaa ku dhawaaqday in dib loo dhigay dhageysiga dacwadda labada dhinac, waxaana la dhageysan doonaa 4 bisha November ee soo socota iyadoo ay doodu ku horeyn doonto Soomaaliya. waa hagaag daawadayaal waxaad la socotaan channelkeena wararka 24 hamuugaan daawadayna subscribe ato channelkeena si aad u hesho xogihii ugu dambeeyay oo ka saabsan arrimaha Soomaaliya lana wadaag asxaabtaada wararkii ugu dambeeyay oo ka saabsan arrimaha Soomaaliya. markaana haddii aan eegno Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa dalbaday hal arrin oo ku saabsan doorashada maamulka Galmudug. Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa magaalada Dhuusamareeb si rasmi ah uga furay shirka dib u heshiisiinta ee Galmudug oo ay ka qayb galayaan dhammaan beelaha deegaanada maamulkaasi. Wasaaraha wasaaradda arrimaha gudaha iyo guddiga qabanqaabada shirka dib u heshiisiinta uga mahad celiyay dadaalkii dheeraa ay u galeen isku keenida bulshada Galmudug ayaa sheegay in shirkani uu gogol xaar u yahay dhismaha Galmudug loo dhan yahay oo ka shaqeysa danaha dadka reer Galmudug sida uu hadalka u dhigay. Mudane Xasan Cali Kheyre ayaa sidoo kale u mahad celiyay madaxweynaha Galmudug, maamulka ahlu sunna, dhammaan bulshada reer Galmudug, ciidamada amniga sugaya iyo dhammaan intii gacan ka geysatay in geedi socodka dhismaha Galmudug loo dhan yahay uu soo gaaro meesha uu hadda marayo sida uu hadalka u dhigay. shirweynahan ayaa inta uu socdo waxa ay reer Galmudug uga tashanayaan dhismaha dowlad goboleed loo dhan yahay iyo qabsoomida doorasho xor iyo xalaal ah oo horseeda in maamulka ay dhisayaan uu noqdo maamul ku hogaamiya wadada horumarka, xiriir wanaagsan la leh dowladda federaalka ee Soomaaliya. Wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa bishii Juun ee sanadkan waxa uu deegaanada Galmudug ka bilaabay dadaal gundhigiisu ahaa ka gulgaaridda Galmudug loo dhan yahay, waxaana haatan furmay shirkii dib u heshiisiinta ee beelaha deegaanada maamulka Galmudug iyadoo ay weli socdaan dadaalada lagu doonayo in lagu soo dhiso Galmudug loo dhan yahay. shirweynahan dib u heshiisiinta kadib ayaa waxaa la filayaa in magaalada Dhuusamareeb ay ka qabsanto doorashada maamulkaasi Galmudug oo haatan ay u taagan musharaxiin halka kuwa kalena la filayo inay ku dhawaaqaan inay yihiin musharaxiinta u tartamaya xilka madaxtinimada ee maamulkaas. waa hagaag daawadayaal waxaad la socotaan channelkeena wararka 24 hamuugaan daawadana subscribe ato channelkeena waad furto gambareelka isla markaana aad asxaabta la sii wadaagto wararkii ugu dambeeyay oo ka saabsan arrimaha Soomaaliya. markaana haddii aan eegno madaxweyne Mugambe ayaa geeriyooday. Robert Mugambe ayaa geeriyooday isaga oo ah 95 jir. wuxuu Zimbabwe maamulayay in ka badan 30 sano, wuxuuna xilka qabtay kadib xorriyaddii dalkaasi. kadib markii uu dhaqaalaha Zimbabwe si weyn u burburay sanadihii la soo dhaafay, dad badan ayaa sii saadaalinayay in Mugambe uu isna dhici doono, balse markaas taasi waa uu ka baaqanayay ilaa xilka laga tuuro sanadii 2017 oo militariga dalkaasi ay la wareegeen xukunka guud ee dalkaasi Zimbabwe. xilligaas waxa uu la saftay xaaskiisa, waxaana looga shakiyay inuu taageerayay inay isaga bedesho. hase yeeshee ciidamada militariga ee dalkaasi Zimbabwe ayaa arrintaasi ka soo horjeestay, waxaana taliyihii ugu sareeyay xilkaasi loo doortay madaxweynaha dalkaasi Zimbabwe. ka hor doorashadii 2008 waxaa laga soo xigtay inuu yiri haddii doorasho lagaaga raayo dadkuna ku nacaan waa in dadka aad isaga tagtaa. markii uu kaalinta labaad galay doorashada wareegii labaadna loo gudbay, waxa uu Mugambe sheegay in alle oo kaliya uu xilka ka qaadi karo, hase yeeshee uusan jirin cid kale oo ka hortaagi karta qabashada xilka madaxtinimada ee dalkaasi Zimbabwe. waa hagaag daawadayaal guud ahaan waxaan ku soo gabagabeynaa wararkii ugu dambeeyay ee ku saabsan arrimaha Soomaaliya. hamuugaan daawadayna subscribe ato channelkeena waad furto gambareelka isla markaana aad asxaabta la sii wadaagto wararkii ugu dambeeyay ee ku saabsan